odayaasha iyo waxgaradka ku dhaqan gobolka Togdheer ayaa soo dhaweeyay safarka madaxweynaha Soomaaliland ee Muuse Biixi Cabdi uu ku tagay dalka Ghana sida warkaasi noogu soo diray wariyaheena Maxamuud Axmed Damaashaad oo nooga soo warama magaalada Burco. salaadiinta cuqaasha iyo waxgaradka gobolka Togdheer oo maanta kulan warbaahineed ku yeeshay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxay ku taageereen safarkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu ku tagay dalkaasi Guinea sidoo kale waxay baaq culus u direen isla markaasina jawaab kulul ka bixiyeen hadallo ka soo yeeray madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan Soomaaliland wax badan baa dib ku soo dhacday dagaal badan baa ku soo dhacay nafiya maalba waa ka doogtay gooni istaageeda calanka guudka iyaga sudan ee imika halkaa ka babanaya waxa ku qoran laa ilaaha illa allah maxamed rasuulullah ba ku qoran waxaan leenahay ha jiro ha joogo cidna loo jaba joogsan maayo waxa weeye gumaysa annagu maanu arag sida aanu xorta u ahayn baanu weli xor u nahay imikana waxa weeye waxba idinkama baahnin waxaana idin yeeli mayno haddaa halkiina ku adkaataan oo aad joogtaan oo aad dawlad Soomaaliyeed oo idinkoo kale aanoo taqaaniin ama aydan muxuu ahayn faragelin waa soo dhiiranaysaan imika wallaahi afartii madmadooba ee la sheegi jiray waa joogaan ma maran ee odhan jirteen afar madmadooba baxay oo SNM la baxay war waa joogaan kuwii iyo kuwa ka badan baa jooga waxaanu idin leenahay imika waa hadlaynaa waxaanu leenahay warnadaaya 30 sanadoodna walaalayaal nadaayaanu idin lahayn haddaan nadayn weydaan wallaahi waxaydaan yaabaynin waxaanu ogaadinaynaa dawladda Guinea ee madaxweynaha iyaga uu sharaftay sidii madaxweynayaashii hore ee loo sharfi jiray taas iyada aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waanaanu abaalaan u hayno dawladda Guinea markii ugu horeysay aynu isku darsanaynay Soomaaliya namay qasbina annaga walaalnimada Soomaaliya inaanu ugu tagno annaga garanay markii aanu garanay waxa nagala kulmay dhibaato badan iyo xasuuq iyo diyaaradaha yagii aanu baalkayaga siisanay oo caasimadayadii Hargeysa shacabkii ku duqeeya maalintaasay wax ka qabasho lahayd indhii cadawga loo diray xagga hore ma eegaan aadimadii jidhkooda damcaynayn gooyaan raasiga berbera waa qalbiga reer waqooyiga ee mar hadda Kismaayo u rartay reer ku kala guur markaasay wax ka qabasho lahayd arrintu maanta wax ka qabasho ma laha meel daaran bay gashay maantana waxaan ugu soo gabagabaynaynaa ku soo ururinaynaa haddaad saaxiibi mooday laxdii horratay sabeenta isdhalay salbadhoodhigiisa wankii ka sanqalay gadaalka in saalax wareeray miihi sabuuxna baraday gaadhay sunbaydiya fiixda reebay damacu ima saarufsiiyo sawaha kuma gala dagaalka shisheeyanimuu sabaaro dibnaha sonkor loogu daadsho iimaanku salaafay miihi ma cuno sambabka iyo xumaysta hungurisuulnima jaqsiiyo sawaha kuma gala dagaalka saamaa kuma dila la jiido carruur sulma sheegta miihi sokor iyo muhurtadiisa dar baa lagu saa jiraaye maduun mihiisaba garaaca dalka Soomaaliland baanu u guntannahay wax ahaantiisaanu u guntannahay walaalanu sidaa ku nahay soo noqodna naguma jiro Farmaajo iyo Soomaaliya ilaahay ha ka qaboojiyo qaraxa aqalada lagu hor joogo madaxtooyada UNISOM ku ilaalinayso madaxnimadooda intaas ay ku siman tahay ilaahay ha ka qaado annagu sidooda ma yihiin xaasidiine ilaahay inuu dawladeeyo Soomaaliya waa ka baryaynaa haddaad diidaan qarankii siyaad baraliqay ee jeeri qaaran jiray ee militariga lahaa dalkiisa waa difaacaya ومحمود أحمد أدن محمود دماشاد ورك رويال TV مقالة برعو.